السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وإن سلام يا سلامة إسلامك. waxaan leeyahay kusoo dhawaada janaalka Arweele Axmed gacmo furan maanta iyo maalin cusub inkastoo maalin maaha waa waqti dambe oo habeen ah ay hoob hadartaas wax weeyaan 3 am waaye oo soo hurdo bugtay wajigayga ma laga dareemayo inaan soo seexday waan soo hurdo bugtay waxaan is raahday maadaama ay xaafadihii xoogaa la kala hurdo soo duub aad baan inii jeclahay laakiin dhibta ay haysta waxa weeyaan marka intaa edit garaysid oo ma aragtay aad rabtid inaad soo daysid waxaa ku idhaahday internetka meeshana ma aqaan waayadan uu iga xun yahay oo waqti buu qaataa marmar 6 saac 7 saac insha allah laakiin waan soo hagaajinayaa dhibaatadii jirtaan soo ogaanayaa maanta iyo qiso cusub maalin walba waxaan ku talagalaa inaan wadankaa garanaynay oo ahaa Mareykanka inaan ka wareego intaan qisada aanan bilaabin qofkii salaad sugayso soo tuko qofkii dee weel iyo jiko iyo wax ka hagaajinaya sideeda aan anigoo kale markaa qisooyinka dhageysanaya waxaan jeclaa ama anoo shaqo haya ama anoo ma aragtay hawl kale ku jiro oo kale ama dadka riboodka qoray oo xafiis joogo oo kale samiicada iska xirnaysaa waa dhageysanaysaa guriga qisa haddaan hayo والله waxaan ku iraahday waa ku dhameynaya hawsha miyaa tiraahday si fiican ugu gabagabeynaya run ahaantii qisadii hore dadka igu soo darsaday aad baa u mahadsantihiin intii ii dhiirigelisay intii whatsappyadooda ii saartay inkastoo aanan soo dhigayo qof walba oo commentiga iiga bixiyay dadka dee xaaladaha hoose igala soo qaaday ma ilaawi doono insha allah waa ina xasuusnaan doonaa saasaan jeclahay barnaamijkeena maanta marka dib baan u galaynaa maadaama aan rabay inaan carabaha aadno insha allah mar kale aan rabaa inaan qisadaas soo raadiyo maanta waxaan aadaynaa wadanka Mareykanka qisadana waxaan usoo qaadanayaa waa qiso waqti dhaweyd dhacday adiga hadda 18kii 2018 August buu dhacay qisadan waxaan usoo qaadanayaa wax kale ma ahan qisadan xaaladaha hadda taagan bay ka tarjumaysaa qisadan waxaa ku jirta qof aad jeceshahay inuu wax kasta aad ka filan kartid inigama hor dhacayo social mediaha waxyaalaha aan ka aragno oo kale maanta waxaa jirta dad aan u aragno ama family aan u aragno family aad u qurux badan haddana xaaladaha ay ku nool yihiin ay tahay xaalado hooseeya marka qisada gudahaan usii galaynaa Chanel inantaan ka hadlayno iyo qisada waxay ku socotaa xaafadaas gabadha la yiraahdo Chanel I hope Chanel inay ahayd Chanel Watt ninkeeda ku darsanaysay alxamdulillah ilaahay inuu islaamiga dhigay oo marka Chanel waxay dhalatay 1984 waxay ku bishii koowaad 10keedii waxay dhashay 2 gabdhood gabar la yiraahdo Bella iyo gabar ay usoo gaabisay Sisi hooyadeed iyo aabaheed isku gobol state bay ku wada noolaayeen gabadhan waxay ahayd dadka caanka ka ah Facebooka markaasi ninkeeda waxay isqabaan 2012 ilaa 2018 ayay qisadooda soo gabagaboobaysaa gabadhan bulshada waxay u soo gudbin jirtay nolol maalmeedkooda hadday awlaad ku soo korodho hadday baashi cuntooyinka cunayaan nolosha ku nool yihiin awlaadooda waqtiga la qaadanayaan shaqooyinka waxaas ku soo gudbin jirtay ninkeeda waxa la dhahaa Chris gabadhan waxay isku dhaleen labadaas gabdhood iyo ilmo 15 week 15 week meeqa u dhigmada intee bilood xisaabiya 15 week baa ay uur aabay lahayd ninkeedu wuxuu ka shaqeynayay meesha gaaska ama oilka laga qodo buu ka shaqeynayay shirkadaas ka shaqeynayay ayaduna waxay ahayd hooyo guri joogta laakiin shaqeysa qaabkay ku shaqeysaa aqli ahaan loo shaqeyn jirtay online-ka ayay alaab ku iibin jirtay hooyo gurigeeda nolosheeda ku faraxsan aan dhibaato aan arag dadkuna ay halkaa kala socdaan laakiin annaga dee dadka say u arkeen
oo miidiyaha ka daawada darisyadeeda waxay say u arkaan dad aad iskugu qanacsan aad u faraxsan nolol fiican ku nool ayay u arkeen gabadhan maalintii markay ahayd 13 Agost ayaa gabar saaxiibteeda taleefankeedii wacday message u reebtay wax kasta samaysay waxay aragtay in uusan taleefankeedii shaqaynaynin taleefankeedii dee qof ka qabanaya aansan jirin xaafadii timaaday ayadii wiil gurigii markay yimaadeen albaabkii bay qaraaceen daaqadahay kusoo wareegeen daaqadaha hadday kusoo wareegeen gabadhan ayadaa gurigeeda markay ka sheekeynayso ay facebooka soo dhigayso gurigeyga dreamka qof aad u shaqaysa intaysan guursan waxay dhihi jirtay gurigeyga dreamkan samaysanaya gurigeedii akhiiran way ku guuleysatay wayna samaysatay iyadoo ka sheekeynaysa baa facebook ku jira leedahay dhibaato badan habeene badan soo jeed dadaal badan akhiiran guusheedii guriga waan gaaray marka Chris waxay ka sheekeynaysaa ninkeedii say ma aragtay ay wada kulmeen dad is yaqaanay ahaayeen laakiin waxay ka wada kulmeen oo isku iskuul ah laakiin waxay ku wada kulmeen meesha la yiraahdo Facebook gabdhow ama wiilalow ma jirtaa qof aan inta Facebook ama miidiyaha kalaba iska barateen isku jeclaateen aad iska guursateen ma jiraan bal taa iga soo dhaadhiciya inkoo dee magaalada iska aqoon ama laba wadan kala jooga ma jirtaa ma in hesha hawshaas oo kale gabadhan saaxiibteed qisadan usoo laabano gabadhan saaxiibteed dadkii waxay arkeen maadaama daily xataa soo qori jirtay in aan dailigin lasoo qorin gabadha saaxiibteeda waxay wacday booliska waxay weydiiyeen locationkii goormaa kuugu dambeysay maxaad uga shakiday oo leedahay guriga laygama furaayo gabadha waxay ku jawaabtay gabadha saaxiibtay ah maalmahan cunto fiican ma cuneynin walwal weyn baa ku jiray cabsi badan baa ku jirtay marka that is why ba igu kaliftay bay tiraahday inaan xaafadda imaado aan xaafadii ku qaraaco la iga furi waayo booliskii way yimaadeen xogtii iyadoo ay dhegeysanayaan oo gaarigana soo wadaan because locationka loo diraya soo maaha locationkay soo raacanayaan locationkay soo raacdeen way yimaadeen gurigii kadib booliskii waxay waceen ninkii la oranaya Chris waa xaaska Shanaan gurigii wax dhaqdhaqaaqa xitaa bisad baa ugu yaree ma dhaqdhaqaaqa ma laha askarti bannaankay taagan yihiin albaabkii wax ka furaya ma jirto Chris la wacay waxaa la guriga noogu imow xagee joogtaa waxaan joogaa buu yiraahday maalin isniina maadaama ay tahay shaqadu ay bilaabanayso waxaan joogaa yiraahday shaqadeedii baan joogaa Chris markaan soo laabano xaaska Shanaan Chris wuxuu ka shaqeynayay meesha batroolka wuxuu ku dhashay 1985 laakiin gabadha sanadka weyneed bishii shanaad iska kaftamay rag iyo dumar waa kala weynaan karaan isku gobol ay ku dhasheen markii dib loo baaray iyo dadka isla shaqeyn jireen iyo kulli ay askarta soo baareen waxay ku tilmaameen nin degan nin aamusnaan badan nin shaqadiisa yaqaan nin dee aanan dadka ku dhacdhacaynin ayuu ahaa Chris way u yeereen si degdeg u yimaaday qaybtii oo baabuurta oo horta maxaa la dhahaa baabuurta meesha lagu xiray garaashkii buu ka furay garaashkii bay fiiriyeen gurigii bay baareen qolka ciyaalka la galay qofna ma joogo asaga wuu la baaraya wuxuu leeyahay ciyaalkaygi meeye halkan ma joogaan waxay aadeen meesha la dhaho waxay aadeen way baxeen waxay waan tegaynaa waa labadiisa gabdhood iyo wiilkii waa labadiisa gabdhood iyo xaaskiisii ilmaha ugu jirana uurkana way weydiiyeen gabdhahaaga maxaa la dhahaa wuxuu yidhaahday gabar waxaa la dhahaa Bella gabar kalena waxaa la dhahaa Sisi wiil 15 week ah uurna way lahayd aan aad ugu faraxsanahay aan soo dhignay meeshan xaaskayga aad baan ugu qanacsanahay waxaan isqabnaa 2012 ilaa haddeer oo la marayo 18 family faraxsan baan nahay miidiyaha laga garanayo deriska ay garanayaan muxtaram ah then waxay ku yiraahdeen xagee ku qiyaasi kartaa wallahi inay waalidkeed aadeen baa macquula inay dalxiis aadeen baa macquula adigu hadalla isdhaaf dhaafsan way marka adiga u raaci weyday may iyada un baa baxday buu yiraahday
kabacdi askartii way baxeen waxay aadeen darsiyada si usoo hubiyaan wuxuu sheegayo. Darsiyada waxay yidhaahdeen reerkan waxaa ku naqaana reer aada u faraxsan, buuqooda ma maqli jirin, dagaalkooda maanan arki jirin, dee family isku faraxsan baan aragnay. Kaamirooyinkay marka waxay ka baareen askartii isla maalintaasba inay guriga waxa ka baxayay, guriga waxa soo galayay. Markii ay baareen gaari dhaqaaqaya morningkii ayay arkeen, soo galaya, baxaya, alaab la gelinayo bay arkeen. Markay arkeen askartii way shakiyeen, waraaqay qaadeen, sawiradii ciyaalka ah guri walbay ku dhajiyeen, jidadkii bay ku dhajiyeen, 24 saac bay sugeen. 2000 ilaa waxaan ka wadaa 14 August 2018 saaxiibkay Chris waa loo yeeray. Xaadirow shaahiisa la soo diyaarsaday, qolkii waraysigaa la geeyey, ninkii ciidanka ahaa baa waraysanayay, booliska ahaa. waa garan kartaa qof boolisa igu soo degdeg maahe, waa si tartiib u wareysanayaa, maskaxiyan dhinac buu kasoo marayaa faamilka, goorta isguursateen, saa isku guursateen, xaaladihiina muu ka waalaya de. wuu wareystay saacaduu kula jiray, xarif kalaa usoo galay sidoo kale wuu wareystay. ninkan hadaladiisu waa isdhaafsan yihiin laakiin wax caddayn ah laguma hayo. wuxuu leeyahay aniga xaaskayga iyo ilmahayga aad baan u jeclahay. waxay kula tahay meel buu kusoo xirayo, ma waxay kula tahay qoftii way maseertay way baxday, ma waxay kula tahay maxay kula noqon kartaa? inkastoo haddana media aan ka laga arkayay dad faraxsan, dhalashooyinka ilmaha lasoo dhigayo, odageedu cunto u karinaya lasoo dhigayo, dee xaaladooduna ay wanaagsan tahay soo dhigayaan. 2 ilmood isku leeyihiin, uur caloosha ugu jiro. ninkaas waxay kula tahay waxbuu ku samayn karaa, wareerkiisa wax gaarsiin karaa. ra'yi ahaan aan weydiinayo. su-aalihii ka badan ilaa casirkii waa la weydiinay, wuu soo laabtay. subaxdii kale 15 haddana su-aalihii abarta looga bilaabay. ninkii hadalku ku hadlayay ma hadalka loogu hadlay. 15 to 16 haddana sidii oo kale su-aalihii way sugayaan, because askartu 99 ninkanay daba dhigteen ayagoo baaritaano youtubeyada facebooka soo dhigaya, wax kasta ay sameynayaan, baaritaan sameynayaan. way baareen si kasta ninkan waa lagu waayay. haddana waxbaa qaldan. markii dambe wuxuu ka sheekeeyey xaaladaha noloshooda. waxaan jeclahay fiidiyowga oo kooban insha allah inaan soo dhigo oo soo raaciyo. sawiradana waaba khasab, fiidiyow bilaa sawiro aynaan soo dhigo no talada, because waxyaalaha qisooyinka carabta waxa uga carar waxa weeyaan waxa lagu leeyahay dadka wejigooda iyo muxuu ahaa waa in la ixtiraamo. dee qofka bini aadanka aniga qisada waa soo samaysan karaa ma aho, that's why uga cararaa. laakiin qisooyinka wallahi carabta weeyaan wax laga tegi kara ma insha allah. haddaa idinku soo custaan waan soo dhigayaa. kadib ninkii wuxuu yidhaahday aniga iyo xaaskayga muddo waxaan isku ahayn dad isdagaalsan, waa isku xumaanay, khiyaanooyin baa yimaaday. khiyaanada xaggeeda ma ahayn, dadku say noo arkeen ma aha, si ka duwan baan ku nooleen, si ka duwan baan ku nooleen. because waxaa keenaysay buu yidhaahday aniga murtaax kuma ahayn noloshan. alla maxaa agtan dad badan sameeyaan. ayadana gurigay ilmo ugu haysaa, cuntay u karinaysaa, way faraxsan tahay, odagayga waaye kan waaye ku haysaa, isagana wuu hagaajinaya. okay seebaa ku dishay naag 15 week uur ah leh. I hope 15 week waa 5 bilood oo uur leh, ilmo dhaqdhaqaaqaya, aabihiis aa tahay, oo ilmahaaga yaryaraa intaba waa dilay. wuxuuna kusoo riday meesha la yiraahdo
haamihii shidaalka haamihii shidaalku dalaq soo siiyey haamihii shidaalka qisooyinka ugu xumaayo maraykan soo maray ka mid ahayd hooyo iyo ilmaheedii xataa qof kale oo banaanka ka taagan muusan dilin waxaa dilay ninkeedii hooyadeed iyo aabaheed ka soo raacatay ilmaheedii buu dilay ilmihii caloosha ku jiruu dilay qisooyinkan hadda anaga waddankeena hadday ku bilaamatay yaa sababta marka la weydiiyey aad u dishay maxay ahayd maxay kula tahay inuu ku jawaabi karo naag aan isla shaqayno abaay nicole hore uma soo guursan nicole buu saaxiib la ahaa iyaduna way ogaatay buu yidhaahday that's why ayaan u dilay haddaan dili lahayn miidiyahay soo dhigi lahayd maxkamaday uu furi lahayd balaabalaayay samayn lahayd that's why waxaa ii fududaatay inay ayada iridka ka baxdo nicole iyada waxba looma haysto just iyadu ma ogeyn inuu dilay ma ogeyn inuu wuxuu damacsan yahay laakiin hadday xaaskiisa ogaan lahayd inuu dilaayo walaal iska kee furo aan kaa tegay bay ku dhihi lahayd ma wax kale awoodaa inay tiraahdo no wax kale ma awoodo iskaga tegi lahayd marka halkaasi qisadii intaysan dhammaanin insha allah gunaanadkii ninkii waa la xukumay forever hawo banaanka ah ma urinayaa la yidhaahday marka qisooyinka ugu waaweynaayo bay ka mid noqotay oo lagu soo qoro intii haddeertas 2000 ka dambeysay dilalka iyo crime ka dhaca maraykanka inaad rayaalo aada u mahadsantihiin waxaan iga rajeynayaa inay dhiirigelisaan subscribe ii samaysaan comment ka bixisaan like-ka share-ka facebookga youtube muxuu ahaa whatsapp-ka snapka asxaabtiina la wadaaga insha allah waxaan jeclahay inaan nagu dheereynin qisadaas ay u yartahay nii soo koobo aadaa inii salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta ha inii wacnaato anigana sidoo kale ha ii wacnaato qisada dambe oo xigta yaa soo buxbuuxiya